بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نقهرين ولا ليال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركز حكته إلهي ومحدث كله سبحانه وتبارك وتعالى سوء كان قوبة بركة سنة وناكسا لوغا هادلايو waxayna wada huseeyo dhammaanteen muhiimna inoo wada ah nolosheenna oo dhan. haddaan u guda galo mawduuca aan ku talagalay inaan ka hadlo maanta oo ah mawduuc aad iyo aad u guda ballaaran timekiisuna uu yaryahay, insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan sheegi doonaa wixii ilaahay iga karansiiyo oo ilaahay iga fahamsiiyo subxaanahu tabaaraka wa tacaala. inaad guul gaarto waa shay aad iyo aad u muhiima. inta aanan mawduuca aan u gudagelin markaa walaalayaal, insha allah waxaan sameynayaa muqadamo yar oo kooban oo ka hadlaysa ujeedada ilaahay inoo abuuray innaga. marka horeba allah subxaanahu tabaaraka wa tacaala uu inoo abuuray. qofku markuu fahmo ujeedadiisa ayuu wixii kale ee laga rabay ama laga doonayay fahmi karaa. hor iyo horaan ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala koonkan buuna keenay, ujeedanu naga lahaa. ujeedada ugu weyn ee ilaahay naga lahaa waxay tahay inaan la nimaano cibaado suban oo isaga aynu caabudno subxaanahu tabaaraka wa tacaala. ujeedada labaadna dhulkan uu ina keenay ee uu ina siiyey ee uu hantida inooga dhigay inaynu camirno. labada ujeedo kala weyn oo waxaa weyn ujeedada ilaahay isaga khusaysa subxaanahu tabaaraka wa tacaala. ujeedada labaad markaa waa midda uu casharku ku saabsan yahay. saa darteed ayaan in yar waxaan milicsanaynaa ujeedada koowaad ee ah inaad la timaadid cibaado suuban inta aada koonkan ku dul nooshahay. cibaadada suuban walaal waxay ku qotontaa laba tiir oo haddii lagaa waayo ay noqonayso cibaadadaadu midaan waxba aysan ka jirin. rukniga koowaad inaad la timaadid tawxiid saafi ah, baraxla, oon waxba ku labnayn ama waxba aysan ku qasnayn. waa rukniga koowaad. rukniga labaad inaad la timaadid raacitaan dhab ah. raalli hada baan ma shaqeeyaan umaanaya. okay. ujeedada abuurka ta koowaad aynu inaan la timaado cibaado suuban. cibaado suuban si loo helo waa in la helo tawxiid saafi ah oo waxba ku qasnayn. rukniga labaad waa in la helo raacid toosan oo suubanaha ilaahay uu kuu soo diray subxaanahu tabaaraka wa tacaala aada si dhaba u raacdid. waayo haddii aadan raacin waddadii saxda ahayd ee lagugu talagalay ma helaysid. caalamkan aynu joogno meel kastoo aad tagtid wuxuu leeyahay qof dadka haga oo waddada ku toosiya. hadduu jaamacad rabo, hadduu iskool rabo, hadduu shaqo rabo, hadduu wax walba rabo, inaad ilaahay u cibaadaysato markaa yaa kugu hagaajinaya oo kugu toosinaya. waa inaad raacdid nabiga calayhi salaatu wasalaam waddadiisii iyo cibaadadiisii iyo suu cibaadaysan jiray inaad fahamtid. arrintanina markaa inaad labadaa shay aada la timaadid cibaadadaada ku xiran. inaad salaad tukato dahaara ku xiran soo maha. haddaadan dahaaro qaadin oo aad cibaadaysato cibaado ma ansaxaysaa? may. cibaado bilaa tawxiidana waxay culimadu yidhahdaan waa salaad bilaa dahaaro ah. ujeedada labaad ee ilaahay koonkan uu u abuuray ama inoo keenay ayaa waxay tahay inaynu koonkan camirno. allah subxaanahu tabaaraka wa tacaala markuu damcayo nebi aadam abuuro ayuu alla wuxuu yidhi malaa'igta ku yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa. dhulkan waxaan ka yeelayaa khaliif baan u samaynaya. khaliifku waa maxay macnihiisu?
khaliifku meesha uu joogo ma leeyahay mise ma laha wuu leeyahay inuu ka shaqaysto oo uu camiro ma tahay mise ma aha way tahay saa darteed ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala dhulkan wuxuu inoo keenay inaynu camirno waana hadyada ilaahay na siiyey subxaanahu tabaaraka wa tacaala fi suurati dukhaan allah wuxuu ku leeyahay wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu dhulka iyo cirka iyo inta u dhaxaysaba ilaahay idinku idin sakhira sidoo kale fi suurati tabaarak allah wuxuu ku leeyahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala huwa alladii jacala lakum alarda dhaluulan maxaa ka dambeeya ma la ilaaha quraanka famshuu fi manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ku socda wadooyinka dhulka korkiisa ah raadiyana irsaaqada ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala oo ilaahay dhulka weydiin geliyey marka ilaahay muxuu dhulka noo siiyey wuxuu noo siiyey kow inaan khayraadka ka faa'iidaysano oo aayadihi aan sheegnay baa u wada daliila labo ilaahay wuxuu inoo siiyey dhulkan maadaama uu inaga dalbaday cibaadadu waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo inoo kaalmeeya saa darteed wax kastoo cibaadada kugu kaalmeynayana ilaahay dhulka ayuu ku geliyay subxaanahu tabaaraka wa tacaala hadday biyo ahaan lahayd hadday waxaad huwata ahaan lahayd hadday meelaad ku cibaadaysata ahaan lahayd wax walba oo cibaadada ku tacalluqana ilaahay dhulka ayuu ku geliyay subxaanahu tabaaraka wa tacaala ujeedada saddexaad ee ilaahay uu dhulka inoogu khaliifka inooga dhiga waxa weeyaan kelmadda khaliif waxay keenaysaa in dad intay marka hore yimaadaan dadna ka daba yimaadaan macnaa bacduna yakhlufu bacdan in qaarkeedba qaarka kale usii gogol xaaro adduunyada usii dhiso usii horumariyo oo waxyaabaha inaga maqan haddaynu Soomaali nahay inaan u fakerno jiilasha inaga dambeeya maxay ku noolaan doonaan dhul sidee u egbeedegi doonaan iskuulla sidee u egbeeyeelan doonaan hanti iyo cilmi iyo caafimaad intee la egbeeyeelan doonaan waa waxyaabaha aadka inoogu yar loona baahan yahay qofku inuu ku fekero war maxaad ka tegaysaa maaha adigu kaliya intaad timaadid wax walba intaad xaalufisid wax walba aad baabi'isid dadka kalena aad tirahdaan aniga maxaa iga khuseeya taasi waxa weeyaan shay wanaagsan ma aha haddaba waa maxay guul inta aanan sharxin waxaan rabaa inaan sheego 3 arrimood oo guusha ka horeeya 3 arrimood waxa weeyaan qof walba oo koonkan jooga muxuu raadinayaa maanta waxa weeye cinwaan baa la soo siiyey waa la soo marti qaaday qof walba wuxuu raadinayaa soo ah waxa qof walba oo koonkan kor jooga uu raadinayo maxay tahay inuu guulaysto weeyaan waa inuu najaxo waa inuu horumar gaaro waa inuu mustaqbal fiican asaga iyo ubadkiisuba ay wada gaaraan taasina waxa weeyaan waa mid qof walba oo naftiisa ka og yahay oo aan u baahnayn sharaxaad badan guul iyo nasiib waxay kala duwan yihiin dadka qaarkood baa waxaa laga yaabaa inay u haystaan qof kastoo guulaysta wallahi nasiib fiican buu leeyahay marka guusha iyo nasiibku ba isku xiran yihiin ma laba shay oo kala duwan ba nasiibku laba nooc buu noqon karaa in ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala qofkan min fadlihi iska siiyo asagoo wax dadaal ugu maray iyo inuu qofku intuu dadaal sameeyo juhdi iyo dadaal bixiyo awoodeedii uu bixiyo kadibna ilaahay uu siiyo subxaanahu tabaaraka wa tacaala oo ay noqoto markaa juhdi iyo dadaal iyo nasiib isku dhex jiraba inay noqoto marka qof kastoo guulaystay ha u qaadanin in nasiibkii inagu aynu naqaanay uu wax ku helay ee dadaal uu dadaalay juhdi uu bixiyey karti uu bixiyey ayuu qof wax ku heli karaa subxaanahu ilaahayna ugu kaalmeyn karaa subxaanahu tabaaraka wa tacaala inaad guul daraysato intaadan guusha gaarin ceeb ma aha inaad guul daraysato oo wixii aad doonaysay aad weydid absolute wax ceeba ma aha laakiin waxaa ceeb ah inaadan guusha u dhaqaaqin oo wadadeedii aadan aadin عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أيها واحد يسأل لي كلمة
aad u qiimo badan inkastoo baab ducaa ay ku saabsan tahay laakiin meel walba way geli kartaa wuxuu oran jiray innanii laa axmilu hama alijaaba walakinanii axmilu hama adducaa in aan ducadii layga aqbalo oo layga ajiibo oo wixii aan rabay ee guushii aan dabacsanaa inaan helo hamigeeda iguma jiro laakiin hami waxaa igu jira ah in aan falankeeda qabto saa ilaahay u baryi lahaa ilaahayna u caabudi lahaa subxaanahu tabaaraka wa tacaala sida awgeed walaalayaal dad fara badan oo adduunyada ku najaxay oo nasiibkoodii iyo calafkoodii wanaagsanaa helay ma aysan helin isla markii ugu horreyseen tusaale ahaan waxaan ka soo qaadan karnaa laydkan wanaagsan ee adduunka meel walba ka iftiimaya qof bin aadan oo bashar oo inagana la mid ayaa sameeyey Edison inta uusan samayn imise jeer ayuu fashilmay oo hadafkii uu lahaa u gaari waayey qaarkood waxay yidhaahdaan 9,999 jeer ayuu fashilmay gaarigan aad taqaanaan ee macruufka la wada yaqaano Ford la yiraahdo ninka sameeyay ama shirkadda iska lahaa Henry Ford waxay yiraahdaan culimadu way ka soo guuriyaan ama dadka taariikhda wax ka qoran ka soo guuriyaan waxay yiraahdaan 7 jeer ayuu wuxuu soo istaagay muflis qof aan waxba haysan 7 jeer to mashruuca bilaabo oo meel fiican mariyo ayuu misla khasaara sadarteed hamigiisu meesha kuma istaagine hore ayuu u soconayay ilaa gaarigiisu adduunka uu noqday gawaarida ugu caansan uguna wanaagsan marka ceeb maaha inaad fashilanto laakiin waxaa ceeb ah inaadan wadadii najaaxa ama wadadii guusha aadan qaadin haddaba waa maxay guul waxa weeye walaal waa wax yar kooban dhowr kelmado lagu dhihi karo oo ah muraadkii aad lahayd ee aad ku tashatay inaad gaartid وأنت سقوش ودوينك أول مرة صح وكهذا الدولار لكن قول معناه يدوح ويا وحي أدوني سي أما أتبني سي أما أدراني سي أو أدهشت هذا بقولش محيوك على بحرا ما هل ما بقوله نبه ماي قوش وين العيب بدنت هاي مدوقهم مهم سن وقوش قفك أنتو صح حقيقيو أي نقطة مد تتكون أنفعها وواحد سؤال كم مقام oo ay leedahay dan guud qofka Soomaaliga hamigiisa inta faraha badan kuma jirto inuu ka shaqeeyo danta guud dadku inay wada liibaanaan dadku inay wada guuleystaan dadku inay wax wada helaan aad bay ugu yartahay waana guusha dhabta ah waana guusha lagu yaqaano dadka himiladoodu aad u sareyso ama hiigsigoodu uu wacan yahay inta faraha badan waxay ilaawaan naftoodu waxay rabto waxayna ka shaqeeyaan waxa dadka kale ay doonayaan tusaalahan waxaan ka soo qaadan karnaa nabi ilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii uu tagay Taif ee uu tagay dacwadiisa la aqbali waayay la diiday bal isagii bala dilay dhiig laga keenay ilaahay malakul jibaal uu soo diray wuxuu yiri nabi maxamed amar waxaan ku qabaa inaan labada buurood baan dhakada ka saaro reer Taif adiga amarka sugaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ma fiir isaga dibka soo gaaray iyo waxa uu doonayay ma helay mise ma uusan helin laakiin wuxuu ka fikiray mustaqbal dheer iyo dan guud oo caam ah oo wuxuu yiri ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwan hadda jooga awlaadoodu inay noqoto kuwa ilaahay caabudo subxaanahu wa tabaaraka wa tacaala wa ficlan sidii baa dhacday marka nabigu danta guud caam buu ka fikiray hogaamiyaasha adduunka ugu caansanna nin walba wuxuu doonayay shacabkiisa sidoo hormariyo ama ummadiisa u taageero guul gaar ah waa mid adiga iyo familkaaga iyo reerkaaga aad ugu dadaalaysid inaad heshid oo aad xaqiijisid guul dhow oo ah wax aad ku gaari kartid muddo yar oo kooban waan u baahnayn juhdi iyo dadaal fara badan guul dheer oo u baahan waqti iyo takhdiid iyo juhdi fara badan inaad ku bixisid inta faraha badanna guulaha dhaxalgalka ah waxay u baahan yihiin waa guul dheer u baahan waqti iyo juhdi iyo dadaal qofku inuu ku bixiyo
si uu xaqiijiyo مثلا إنه أخبرته أخبرته واحد سهل ما إنه هير سلك جاو ما ملك يا مارينتا أما بلشة إنه هو جامي واحد سهل ما واحد هبيني ما نقول كلام ما وواحد أباهن إنه قف وقت الدير كوب حيو واحد فرا بدن أخريه واحد فرا بدن هو قاله هذا ما حيته هجرتروين كقف وجوش أو مريكله كم وحوه الرئيسة ربيتان دب أرتيري أدوك هاتماده waxaana doonaysid waa in rabitaan dhab ah oo gudahaaga iyo qalbigaaga ka imanaya waa inuu jiro hadaa waxaan aadan rabin inaad u dhaqaaqdo way adag tahay marka waa maxay rabitaanka dhabka ah ama dhabta ah xagee uu ka yimaada rabitaanka dhabka ah ama dhabta ah waa dareen dhameystiran oo u horseeda qofku inuu hawsha uu doonayo fuliyo dareen dhab ah oo dhameystiran maaha mid naaqus ah oo kala dhiman una horseedaya qofka inuu hawshii ugu talagalay inuu fuliyo tusaale ahaan haddii mar qof intuu kusoo qabto ama xikmadan waxaa la yidhahdaa nin waxay ka dhacday nin shiinaysa oo xakiim ah iyo ardaygiisii wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ii fasirtid ama i tustid rabitaan maxaa la yidhahdaa markaas macallinkii intuu guriga galay ayaa wuxuu soo qaaday baaldi biyo ah biyo ka buuxaan baaldigii buu markuu soo qaaday ayuu madaxa u geliyey biyihii intuu qoorta qabtay cabbaar markuu ku hayay ayuu ninkii gilgilistay madaxii gilgilay isku dayay inuu ka fakado waa ka fakan waayey cabbaar kale uu kusii hayay waa isgilgilay waa ka fakan kari waayey markii nafta u timid ayuu madaxii la booday markuu iska tirtiray wajigii ayuu wuxuu yidhi wax ma baratay kasirna waxba ma baran su-aashii aad ii sheegaysana ama jawaabteedii ma fahmin oo maana helin wuxuu yidhi waad baratay buu yidhi wax fara badanna waad baratay buu yidhi waxaad baratay buu yidhi rabitaanka dhabta ah markuu yimaado inaad cid ku celi karayn meen ahayn waayo ninkan markii daqiiqadii ugu horreysay meesha lagu qabtay ama biyaha lagu qabtay oo is yidhi ka bax rabitaan dhab ah oo ka bixitaan dhibaatadan haysa ah ma uusan samaynin daqiiqado ka bacdi ma uusan samaynin laakiin markii ugu dambeysay muxuu sameeyey wuxuu la yimi rabitaankii dhabta ahaa ee uu kaga bixi lahaa dhibaatada ayuu la yimi marka rabitaankuna wuxuu u qaybsamaa bay yidhaahdaan culimmada ka hadlaan mawduucan 3 qaybood kow rabitaan la yidhaahdo awood qofka bini aadamka ku jirta oo ilaalisa noloshiisa siduu u safgarayn lahaa tusaale fudud haddii inagu hadda meesha ku jirnaa bahalka alarmiga la yidhaahdo uu dhawaaqo ama uu qayliyo qof walba oo meeshan jooga wuxuu isku dayayaa ya inuu baxsado cararo wax kugu abuuran oo ilaahay adigu kugu abuuray subxaanahu tabaaraka wa tacaala taas waxaa la yidhahdaa markaa rabitaanka qofku uu badbaadinayo jiritaankiisa isagu uu jiri lahaa ayuu badbaadinayaa gaajaa ku qabatay waxa ugu horreysa aad raadinayso waa maxay oon baa ku qabtay dhaxan baa ku qabatay kulayl baa ku qabtay marka waa rabitaan adigu aadan iska doondooni karaynin laakiin ilaahay kugu abuuray subxaanahu tabaaraka wa tacaala oo ah sidii jiritaankaaga iyo noloshaada aada u seefgarayn lahayd haddaan qeexnana waa dareenka kugu khasbaya inaad ku dadaasho helitaanka aasaasiyaadka nolosha si aada u badbaadisid jiritaankaaga aasaasiyaadka noloshana waad wada taqaanaan waa hawada biyaha cuntada waxay kaloo culimadu tusaale usoo qaataan kaynta marka la joogo libaaxu aroortii markuu soo tooso wuxuu raadiyaa ugaar uu cuno waxaa laga yaabaa inay deeraduna tahay tan ugu hilibka macaan muxuu isku dayaa markaa markuu xayl deera arko in uu ta ugu socodka gaaban isagoo ka dheereeyo soo maha soo qabto
isagu saas u rabaa laakiin iyadu maxay isku dayaysaa iyadu waxay isku dayaysaa inay isaga ka dheerayso marka loolan rabitaan baa ka dhex jira labadoodii kan waxbuu rabaa kan kalena waxbuu rabaa haddii markaa deeradu ay gaabiso waxaa xaqiiqo noqonaya rabitaankii libaax haddii deeradu ay dheeraysana maxaa dhacay waxay rabitaankii deeranayay libaax wuu hungoobay marka taasi waa wax dabiiciya oo ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala dadka uu ku kala rakibay shayga labaad ee rabitaanka waxay yidhaahdaan waa awood qofka kaga timaada dibadda oo dhiirigelin qofka siisa si uu hawl u fuliyo ama u qabto dhiirigelintaas ama waxyaabaha qofka dibadda uga imanaya waxay kaga iman karaan macalinkiisa waxay kaga iman karaan aabihii waxay uga iman karaan hooyadii saaxiibkiisa dadka ku hareereysan oo dhan ayay uga iman karaan intee in la-egba markaa ay socon kartaa qofka mar kastaba hadduu sugo in cid dibadda uga timaada ay dhaqaajiso soomaaliya hadda waxyaabaha ka dhaca waxaa ka mid ah markii abaar yar ama wax yar ay dhacdo dadku markay mikrofoonka soo qabsadaan ama idaacadaha yimaadaan maxay yidhahdaan ya beesha caalamka ayaan wax ka doonaynaa qorba joogta waa inay wax noo soo dirto hay-aduhu waa inayna taakulayaan waa inayna gacan qabtaan marka qofkani mar kasta muxuu sugayaa wax dibadda uga yimaada ama isaga ka baxsan macno kale haddaan ku siiyo adiga rabitaankaaga tusaale ahaan maanta waxaad dhegaysatay muxaadaro lagjar baad dhegaysatay wacd iyo waanaad dhegaysatay dareenkaagu ku aadan wixii laga hadlayay intee buu noqonaya aad u kacaya kaba soo qaad haddii jannada laynooga sheekeeyo ama waxyaabaha dadku ugu jecelin waxaa ka mid ah sidee ku noqon kartaa milyaneer qof taajiro lacagtu meel walba iska dhigay haddii lagu yidhahdo 10 dariiqa lagu sheegayaa xamaasadda maalintaa ku gasha intee in leeg bay kula socon kartaa اسبوع اسبوعين 3 اسابيع 5 اسبوع هل بال 2 بال 3 بال انت بك ودا كرتا مدة كوبن بك ودا كرتا ربيتانك صدحات وربيتانك دبتا ee qofka isaga gudihiisa ka yimaada uuna doonayo shay mucayan ah oo xaqiiqo ah inuu tafxayto sida tusaale ahaan inuu qofku yidhaahdo maanta laga bilaabo waa inaan jaamacad galo wax barto maanta laga bilaabo waa inaan shaqeeyo si aan guri u dhisto maanta laga bilaabo waa inaan lacag urursado si aan u guursado maanta laga bilaabo waa inaan wax sameeyo si aan xajka u aado macna waa rabitaan go-an laakiin wuxuu ku aadan yahay shay mucayan wuxuuna ka yimi qofka naftiisa waana awoodda dhabta ah ee waari karta jiri karta muddo dheer waa awoodda dhabta ah ee qofku isticmaali karo qofku isticmaalo dareenkiisa ee uu ku muujiyo ama ku isticmaalo dareenkiisa dhabta ah waa awoodda dhabta ah ee kala saarta qofka guusha dhabta ah hela iyo qofka guusha dhabta ah aan gaarin waayo qof kasta oo guul dhaba gaaray laabudda waxaa laga maarmaana inuu dareen dhab ah oo dhaftiisa ka timi in ay jirto tusaale ahaan haddaad tusaaledeeda soo qaado waxaa laga yaabaa dadku inta faraha badan wuxuu jecel yahay inuu qof kale wax la wadaago qof baad wada tashateen waxaa tiri waxaan doonayaa maanta ama aniga adigu inaynu mashruucan ama arrintan aynu wada fulino dukaan wada samaysano business wada abuurano wax kasta markaad isla fahamteen maalintii aada mawduuca dhaqaajin lahayd ee aada bilaabi lahayd
hadduu qofku intuu ku yimaado ku yidhahdo waa ka xumahay arrintan wax waqti uma hayo ma doonayo inaan sameeyo dareenkaagu sidee buu noqonaya ka fikir wax yar adoo u diyaara shaqadii inaad hawshii bilowdaan gabadh baad shukaansatay ama gabadh wiil bay shukaansatay maalintii balantii iyo meeshii ugu ficneed la marayay qof walba wuxuu yidhi may anigu arrintan waa ka baxaya kuma jiri karo qofkaasi dareenkiisu intee buu ekaanaya qofkaasi laba mid weeyaan inuu hami jabo oo yidhaahdo meeshii uga dhaqaaqo iyo in uu yidhaahdo dhib ma laha anigu maadaama aan mashruucan iyo arrintan aan ku talagalay haddaad doonto adigu iga maqno waa inaan fuliyo waa inuu qofku dhaqaaqo taas maxay keenaysaa markaa in awood dhab ah oo rabitaan dhab ah oo qofka niyadiisa ka soo go'day inay marka horeba jirtay nin baa wuxuu yidhi waxaan ahaa ciyaartoy kubadda aada u ciyaari jiray kalsooni fara badan baa waxaan ku qabay buu yidhi tababarahayga maalintii dambe anigoo rabo inaan ciyaaro oo meeshii goobtii ciyaarta imid ayaa tababarihii gooyey waa fiiriya ninkii maba soo socdaba neerfoos baa noqday buu yidhi dhiiggayga meeshii ugu sarraysay buu gaaray nin baa i yimi buu yidhi markaasu wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay markaasu wuxuu yidhi niyow arrintaas ay haysata wuxuu yidhi isku tasho nin raga ilaah kaa dhigay ka soo qaadna sawirada meesha yaalla mid ka mida inuu yahay tababarahaagi arrintii ku dhaqaa ciyaartii baan galay buu yidhi anoo dareensan wuxuu yidhi jamhuurka meesha fadhiyana waxaad ka dhigataa buu yidhi kuwii adiga ku taageerayay sidii baan yeelay buu yidhi waana ku najaxay ciyaartii macnaa intaas iyo tusaalooyin ka fara badan ayaa jira inaad marka hadaf ama guul gaartid bointiga labaad ee marka laga soo tago awooddii gudahaaga ku jirtay waa inaad la timaadid firfircooni haddaadan firfircooneyn oo aadan firfircooni la imanin way adag tahay inaad hadaf fara badan iyo wax fara badan aada dhaqaajisid firfircoonidu waa waxa keliya ee qofka waxa gudihiisa ku jira dhaqaajiya si marka aada u heshid firfircooni laba shay waa inaad kulansatid caqli firfircoon oo wax kasta aqbali kara dhibaato kastoo kugu timaada xallin kara fekerkiisu uusan istaagaynin uusanna koobnayn iyo inaad la timaadid jir firfircoon labadaasiba markaa maxay ku suurtogeli karaan kow waxay ku suurtogeli karaan iimaan qawi inaad leedahay ilaahay subxaana tabaaraka watacaala ku siiyey labo inaad aqoonteeda leedahay waxa aad u socotid way aqoontu waa inoo iman doonta kaalinta ay ka qaadato qofku inuu hadafkiisa xaqiijiyo iyo qofku qaabka noloshiisa uu markasta u maareeyo oo ah waxyaabaha dabiiciga ilaahay inoogu talagalay qofka maankiisa hagaajiya jirkiisa hagaajiya fakarkiisa wanaajiya inuu qofku isticmaalo waa sunan kowni ah oo loo baahan yahay qofku inuu xaqiijiyo ama ka dhabeeyo saddex inaad leedahay aqoon iyo xirfad kugu filan haddaad doonayso inaad guul gaartid aqoonta waa taqaanaan walaalayaal idinkana sheekayn maayo aqoon inay faa'iido leedahay culimmadu waxay yidhaahdeen hal kelmad bay ka yidhaahdeen oo ah ninka jaahilka ah ee waxba aan aqoon haddii lagu yidhaahdo jaahil baa tahay ma taqaani u xanaaqa muxuu xanaaqaya wuxuu u xanaaqayaa waxaa lagu tilmaamay waa ceeb waxaa loo diidayna waa sharaf marka aqoontu waa sharaf nooc kastoo ay tahayba nabigeena calayhi salaatu wasalaamna shayga keliya ee ilaahay uu ku yidhi badi inaan kuu ziyaadino dalbo waa aqoonta fii suurati taha alla wuxuu ku leeyahay waqul rabbi zidnii cilma kullama isdaada alinsaanu cilman waa marka uu hadaf dhab ah uu gaari doono khaasatan waxyaabaha inaga maqan waxaa naga mid ah waxa aad doonaysid iyo hadafka aad doonaysid bal marka hore baro qof baa wuxuu doonaya inuu xajiyo
من حد كلام مرة لما يقال وحدوني إنه قناع صفرته حرامي حرام وما كان الصعرة وحدوني إنه جورسدو ما بيقال وقاب كان ورش marka qofku marka hore waa inuu waxaan daraaseeyo oo barto oo aqoonteedii iyo xirfadeedii uu la yimaado haddii marka aad la timaadid aqoontii iyo xirfadii maxaa kuu suurtagelaya waxa kuu suurtagelaya in aad la dhaqanto wax kastoo kugu yimaada aqoontu way ka difaacaysaa bal waxaa laga yaabaa inay ku siiso waxyaabo fara badan oo dadku aysan haysan aqoontu waxay kugu abuuraysaa kalsooni adigu aad gudahaaga ku kalsoon tahay naftaada ku kalsoon tahay cid allaale ciddii aad la shaqaynaysayna ay kugu kalsoonaanayso maanta adigoon chemistry waxba ka aqoonin haddii lagu yidhaahdo fasalka shanaad ama lixaad ama toddobaad baad fasal aad 10 u dhigaysaa maadadii waa kana buugii waa kana qalinkii waa kana orodgal way kugu adkaanaysaa waa weligaa waxaan maada arkin waxaan taas uga gol leeyahay qofkaasi markuu fasalkii galo markaa kalsooni ma isku qabaya in wax dhigo ma isku qabayo marka si aad u heshid kalsooni waxaan aad doonaysid marka hore baro si naftaadu adigu aad isku kalsoonaatid dadkuna ay kugu kalsoonaadaan shayga afraad ee looga baahan yahay qofku inuu guul gaaro intaadan guusha gaarin وأنا واحد صوريستي صوريسي وعن مثلا مشروع بارتانا فلوسي دم بارتانا قبستي دم تاسفت ويني هرت هذا كم وقته جوانب تدرين عيد ضمن وين الأرك كرتي قابك أي نقنيسو هبك أي نقنيسو سيدا لقيا بين مركب قدام بس أي نقطة النتيجة وين صوريستي هذه أنا وحبب أنا صوريسو وحي أسكي قشيد خلالات فرابضان iyo dhibaatooyin farabadan ayaa kugu imanaya marka suuraysiga wacan waxay yiraahdaan culimadu waa furaha xaqiijiya himilooyinka wacan wax kasta furso ma laha inuu waxaan qofka suuraysto oo sawirto sawirhaan isu soo hordhigo waa furaha ugu horeeya ee himilooyinka wacan qofka u xaqiijin kara horumar kasto la gaarayna waxa asal u ah suuraysi ما هو مرينا نك كمبيوتر كان ألفي أما سميه إنه تقول إسكا قالوا إسكو حر حركة كبد كمبيوتر سمي مثل مركه رؤوس ورست واحد قابك وشقين لها وحو إسكو ركب لها وحي يقرب مركه رئيس وركان كبعدي أي فكرة دي أسر تقش مركا دونيسد مركا إنا wax fiican sameeysid ciyaalkaaga mustaqbalkaaga inaad u sameeysid marka hore wax weeyaan waa inaad la timaadid suuraysi wacan si wax walba kuugu hagaagaan intaas oo marka aad soo qabatid maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay wax qabad rabitaankaaga iyo awooddaada gudaha ku jirtay aqoontaadii xirfadii suuraysigii wacnaa wax suuraysatay haddii wax qabad uusan ka dambaynin inaad wixii ku dhaqaaqdid maxay noqonayaa hal bacad lagu lisay soma waxaaga oo dhan waxay noqon hal bacad lagu lisay ka wax qabadku waa wax laga maarmaan ah sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala kitaabka qur-aanka markaad akhrisid ayaa markasta waxaad arkaysaa ina aladiina aamanuu maxaa ku xiga وعاملوا الصالحات آمنوا وآمناتي يترولي يقفكي معنا حويا وحي قلبي يسكو جري يتعلمتي وحي أصابرتي محاكو حيقا بركان وعاملوا الصالحات هذا إيمان بس بان لا إيمان إياه عمل لنا الله إيمان إياه إيمان كسبان صحيا ما صحيا وياه مكاسي وحي أدوني سيوصور تقالان وأنا لا تمدد وحقبت طبعا مكاسي أدو هشيد كو إنا هشوط تلا صار شر ربي إلهنا ترسل سبحانه وتبارك وتعالى وأنا مسلمين بانهاي إن بقول كيف بقول نفت آمنتي وواحد لقى في عينهاي بقول كيف بقول إلهي آمن تلا صار أدو وحي لقى بهنا لا إمام النبي عليه الصلاة والسلام حيري
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله هذا إلهي ترسال الله يدين سببا أو ترسال الله يدين لرزقكم كما يرزق الطير وحيدين أرزق لها سيدا شبرها إلهي وأرزقوا أيدين أرزق لها إن شبرتم بحضه إذا ما له حكم أوجي كدبنا أيسان نقطه إذا عكان أو نركسن أيسان نقطه نبى النبي قوي عليه الصلاة والسلام رسولك الله وحيري نيف كيلا وطا ميان سكسي دايا أو إلهي تلسارتا مسوان دبرا أو إلهي بتلسارتا نبي محكيري أعقلها وتوكل على الله عمل كل يوم مركها يا شقدي كدبنا إلهي تلسار مركا الله بشي باجرة توكل يتواكل توكل كوا محي وقفك إنه تلسار شدي إلهي لي ماذا فعل كنا حق راعيه تواكل كنا وحويان إنه قفك يراهدو بس يعني إلهي ما وحكى سجيا لابو سي عمل كابوها جابو وين اللي تمد النيد وعن وهي النيد وحي كم تهي وحيابها أبو وناكسن إلهي سبحانه وتبارك وتعالى يقول من استهدان لها المسلمين علماء وحي رهدان نيد في عني وعمل كبركيس مركز نيد أبو وناكسناته عمل كابو وناكسنانية مدة كلا أدل أريد أسعوتي أرين مادية أي تهي ونيد أولا جسد وحلقة يابا أما دعكرتو حقيقة بأبا إلهي إنه أجري حسنات كاسيو waayo waxyaabo fara badan hadaad u samaysid inaad cibaadada ugu kalmeysatid noloshaada ku saxdid adoon cidna ku xadgudbaynin cidna aadan dulminaynin waxay gelaysaa min baab cibaadaat bay gelaysaa oo ilaahay ajri xasanaad ayuu ka siinayaa shayga ugu dambeeya ee qofka looga baahan yahay qofku inuu yahay qof aragti dheer ama waxa loo yaqaan odoroska reer baadiyuhu sibay u isticmaalaan odoroska soo maha laakiin anagu waxaan u isticmaalaynaa qofku maadaama aad doonaysid inaad hadaf xaqiijisid guul gaartid guushaasi waxay leedahay caqabado fara badan caqabadahaas markaa in aad kasii warhayso مثلا قف بدوني إنه جورسده جورك عقبضوا لي عقبضها هو رسول حاب كبد إن قبل بالوجود ده بصمه هذا كهر نبالي تمسات كاستاجي أيام حيري قبل وحال هيا سدا يا سدا يا سدا يا سدا أيام إيجا قدومي ننقل يا الله ماشى قعدت تاجي بقعدت تاجي هذا يوم كان متجع على سنين كاس حيري مشات عيارت كذا ليه marka waxa dhici karta in gabadha lagu diidaba waxa dhici karta in caqabad ama kuwaas oo kala ahayn ee kuwa kale ka sii waaweyn bayna ku hor istaagaan marka waa inaad marka horeba ka sii feejigan tahay maxay yihiin caqabadaha iman karo arintan ku iman kara taas maxay sahlaysaa marka waxay ku sahlaysaa dhowr arrimood arinta koowaad ee ku sahlaysa waa maxay in caqabadu marka ay timaado aad heshid xalinteedii laakiin haddana markii horeba aadan ka sii fekerin way kugu adkaanaysaa marka dambe inaad xalisid labo waxay kuu fududaynaysaa arrintani haddii yoolkii iyo himiladii aad lahayd aada weydid ama ay suurtogeli weydo ilaa wax walba aan doonayn inay suurtogalaan ma suurtogalaan qofku inuusan niyad jabin waayo culimada Soomaalidu waxay yiraahdaan war la qabo xiisa ma leh adoo war ka dhirigsan haddii lagu yimaado lagu yiraahdo arrintaas dhacday ma ogtahay ta'athir inta laga kugu yeelan kartaa ilaa hore u sii ogeeyay marka maadaama aad hore u sii ogeeyay caqabadan waxay ku keenaysaa in aadan niyad jabin oo arrintan niyad jab weyn aysan ku keenin saddex waxaad ka sii qaadaysaa firfircooni
iyo isla markiiba inaad u gudubtid wax la yidhaahdo balan b iyo balan c. marka balankaagii hore uu meesha ka baxo, kii kale ee meesha ku jiray baad la soo baxaysaa, markaasaa isaga u gudbaysaa oo dhaqaaqaysaa. waa shaqo cusub. kaasaa suurtageli waayey, kii saddexaad baad la soo baxaysaa. marka qofku mar kasta muxuu ku jiraa nashaad, firfircooni iyo number 6 camalku hadda aan ka soo hadlaynay wuxuu u baahan yahay wax muhiim ah oo la yidhaahdo joogtayn ama daymuuma, continue. waxaan qofka si saxa oo joogto ah uu u qabto. nimankan yajuuj wamaajuuj ayaa waxaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, maalin walba way yimaadaan meeshay qodaan markii ay waxay uga dhiman tahay bay dib uga laabtaan. halkaas maxaa lanaga tusayaa? waxaa lanaga tusayaa qofku hadduu shayga joogteeyo marka dambe waa gelaya. saa darteed culamadu waxay yidhahdaan markay baabu ducaa ay ka hadlayaan iyo qofkii ducada laga aqbalo, man daawama qarca albaabi, qofkii joogteeya albaabka inuu gargaraaco, albaabka ilaahay subxaana tabaaraka wa tacaala, ugu dambeyn waa gelaya. marka joogtaynta aada joogtaynaysid camalka waxay keenaysaa ugu dambeyn inay kuu suurto gasho wixii aada doonaysay inaad heshid. laakiin haddaad noqoto nin markii waxyar ku yimaadaanba iska kufa oo aan dib u soo kicin, macnaa waxa weeyaan wax fara badan adduunyadan kaaga suurtogeli maayaan. markaa joogtayn haddaan tacriifino maxay noqonaysaa? يا أخي ماشي قرأتها بحيث الله خير ماشي قرأتها ما ماشي قرأتها shaqo aan lahayn maxaa ku xiga? maxaa ku xiga? hakad iyo joogsi. shaqada labada midna ma laha, hakad iyo joogsi. hadda fahamtay soo maha? marka shaqada lagaa doonayo inaad qabato waa shaqo aan labada midna lahayn, ma dhammaanayso. waana shaqada loo baahanya qofka muslimka inuu qabto. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fi saxiixi muslim xadiis ku soo arooray, haddii qofkiin uu haysto geed tallaal ah uuna maqlo buunka qiyaamaha inuu yeeray, ha tallaalo. allahu akbar. macnaa qima fi lcamal weyaan, soo maha? buunkii qiyaamuhu maqlay inuu yeerayo, wuxuuna haystaa laan uu tallaali lahaa. muxuu yihi nebigu? ha tallaalo. macnaa hadhihin baalkiiba waa yeeraya baasha laga kala toor, hadhihin baashaas tallaal oo meesheedii ku ekeen. qodobka 7 insha allah inuu dheeraada baan ka baqayaa. qodobka 7 ee ugu dambeeya waa qodob muhiim ah. waxaan aad qabanayso ama guushan aad doonayso waa sir. waa sir adigu aad leedahay. sirta adigu aad leedahay public ha ka dhigin oo qof walba ha u sheegi. maalan heblayaad la sheekaysataa, shaqaad raadinaysaa, mashruuc baad rabtaa inaad fuliso, qabanqaabadiisa ku jirtaa, kii kaasoo horbaxaba haddaad u sheegto ka waran ya adaa isdiri. marka xogta sirtaada ama xogtaada waa inaad qarisid. xadiis nabi baan ku soo aroray calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, nabigu uu leeyahay, istaciinuu umuurakum aw qada'a xawaa'ijikum bilkitmaan. arrimihiina inaad fushataan waxaad u kaalmaysataan inaad qarsataan. waayo sababtu maxay tahay? fa ina kulla dii nicmatin maxsuud. qof kastoo nicmo raba ama inuu helo ama xaqiijiyo xasad baa ka imanaya. waxaa kaloo iman kara
arrintaadu inay baahdo hadday baahdo maxaa dhacaya 5 qof oo sheegtay ama 10 qof oo sheegtay hadhow waxaa dhacaysa maalin walba 7daas qof ama 5 qof markay kula kulmaan maxay ku weydiinayaan war arrintii ma dhamaysay war arrintii ma qabatay war arrintii xaggee maraysaa hadhow marka hadday dhici waayaan wixii maxaa dhici doona inaad dadka xataa ka dhumatid soo ma inaad dadka ka dhumatid baa dhici karta saa marka ugu horeysa waxaaga qarso maxaa kaloo dhici kara dadku isku wada mid maaha sidaan sheegnay qaar baa aan jeclayn dadku inay horumar gaaraan kaasoo kalena waxaa ka qarsatay waana matlab sharci ah waxaa kaloo dhici karta haddaad dad fara badan u sheegto in wixii ba lagula sheergareeyo soo maha lagula wadaago sirtu waa dhadhanka soo mahay haddii sirtii adigu aad lahayd aada iska faafisid cid kalaa laga yaaba inay ka faa'iidaysato taas macnaheedu maaha inaan dadka khayrka u diidayno laakiin adigu maadaama waxaan aada doonaysay inay kuu suurtagalaan qofna ma jeclo wixii isagu uu rabay inay cid kale ka qaadato ilaa hata walaalkii u noqdo Mughirah ibn Shu'bah oo nin saxaabi jaliil ahaa ayaa waxaa la yidhi nin aada iyo aada u guursi badan buu ahaa gabadh buu soo arkooday aada u qurux badan wanaagsan reer ka dhalatay fiican nin xogaa da-ana uu ahaa wiil yaroo dhalinyaro buu dirsaday markaasaa wuxuu yidhi gabadhaasaan doonayaa reerkaase bal isoogow wiilkii yaraa wuu baxay reerkiibuu u tegey gabadhiibuu soo arkay wuuba ka helayba gabadhii markuu ka helay ayuu usoo noqday laamaana waxbaa loo dirsaday soo maaha odaygii Shucbaha buu usoo noqday markaasaa wuxuu ku yidhi gabadhii iiga waran markaasuu yidhi niyo gabadha waxaan arkay nin dhunkanaya odayga wuxuu yidhi inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun maradiisu iska qaatay waa iska tegey maalintii dambe ayaa waxaa lagu soo wargeliyey wiilkii inuu gabadha guursaday markaasuu tuuyi wuxuu yidhi war miyaad igu dhihin gabadha nin dhunkanayaan arkay markaasuu yidhi waa sax nin dhunkanaya laakiin aabaheed buu ahaa buu yidhi aabaheed baa dhunkanayay gabadha marka ninkani dhibaatadu xaggee uga tiri sirtiisi u faafiyey wixii uu rabay ayuu cid kale u sheegay ciddii kale jaalis ka faa'iidaysatay marka marka qaarkood waxaa loo baahan yahay inaad waxaaga aada weelaysato si ilaahay adigana kuu xifdiyo guushaadana kuu gaarsiiyo insha allah inaan casharkeed ku dheereeya waan malaynayaa guul wacan iyo gabagabo jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu